kulankan oo ahaa mid looga hadlayay sidii ay sare ugu qaadi lahayd hay'adda Turkish shaqooyinka ka wada gobolka Gado gaar ahaan degmada Luuq waxaana kulankan ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sareysa hay'adda Turkish ee 27 wadan ay ka shaqeysa hay'adda iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Luuq waxaana inta badan diiradda lagu saaray sidii hay'adda ay u laba jibaari lahayd adeegyada ay la xiriira caafimaadka ay ka wada degmada Luuq kulanka kadib gudoomiyaha degmada Luuq mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Garruub ayaa warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay waxyaabihii ku saabsanaa kulankan maanta waxa xafiiska degmada Luuq uu soo booqday ka socda hay'adda Turkish نقول كانتر دايركتور في هيد اوف سكيورتي magaas oo yimid inay tabagal ku sameeyaan deegaanada iyo baahida ka jirta ee ka qabtaan kama mulaalana mar walba waxaan taageer hadii habeen waa leeyahay shacabka bulshada loo maqan iyo madaxdeeda iyo ka qayb qaadashada sugidda amniga Turkish waxay ka shaqeynaysay muddada 22 sano la soo dhaafay degmada Luuq qabanaysan baahiyo kala duwan caafimaadka waxbarashada iyo dhanka horumarinta bulshada waxaana ku boornay inay shaqooyinka wadaan si laba jibaaraan bulshadana ku qabtaan waxaan kaloo u warxanay baahida ka jirto iyo horumarinta ka jirto ku soo kordhay deegaanka iyo si guud loo wada istaago sida wax loo qabto shacabka dhibaataysan ee maamulka soo gaaray degmada wadamada waxa baaxadeeda aad u balaaran tahay haday ahaan lahayd deegaankii beeskii ku fadhido iyo haday ahaan lahayd tuulooyinka Osman waxaan u dheer u baaqaynaa hay'adaha samafalka inay ka qayb qaataan samata bixinta shacabka ku dhibaataysan deegaanka iyo nawaaxigeeda iyo sidii ugu istaagi lahaayeen in gacmo wada jir loo istaago shacabkaas oo wax loogu qabto maanta ku saabsanaa sidii loo dardargelin lahaa dhanka hay'adaha istaagida baahiyaha taagan si wada midaysan hadaan maamulka hay'adaha samafalka Turkish ka qaadashada dadka dhibaataysan Cabduul Yuusuf Caabi TV-ga caalamiga ee Royal 24 magaalada Luuq